ayaamihii u dhaweysayna soo dhaaftay iyo weygagii horeba hoosu dhac waalanba suuqyada caalamka ku yimi hadday tahay cryptocurrency-ga gaar ahaan aynu ku danaynayno iyo stookyada caalamka ee kala duwan. muuqaalkan aad arkaysaa maanta waxaanu kaga hadlaynaa qodobadii ugu muhiimsanaa ama saamaynta weyn ku lahaa suuqyada caalamka oo hoosu dhaca waalan sababta u ahaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن محمد جامع وسو دوادا channelkeeni muuqaal cusub haddaad channelka ku cusub tahay like iyo subscribe channelka noo saar si aad channelka ugula socotid waxyaabaha cusub ee kriptada kusoo kordhaya. musaabaqad baynu samaynaa weekend insha Allah taasoo suurado yaryar aan doonaya inaan soo dhigo fiidowga dhexdiisa. inunkuna waxaan rajaynayaa inaad sawirka heshaan oo hoosta commentkaad kusoo qortaan sawirkaasi wuxuu yahay amba shikalkiisa. qofkii gartana insha Allah giveaway aynu samayn doonaa oo $20 xalaqada dambe aynu soo bandhigano insha Allah aynu ku shaacin doonaa qofka بديي kusoo dhawaada. horta suuqa saameyn weyn waxa ku lahaa dhowr qodobadaas insha Allah aan yaro dul istaagay mid walba inkastoo ay qodobo aad iyo aad u fara badan yihiin aanan doonin waqti badan inaan kulmiyo insha Allah. qodobka ugu horeeya waxa weeye corona iyo variant-kan cusub maartay amba nooc cusub ee la yiraahdo Omicron oo ku soo batay caalamka sayno aragno maalin walba milyan dheeraad baa laga helaa wadamada reer galbeedka. arrintaas oo iyaduna saameyn ku leh suuqyada caalamka isbedelka ka dhacaya imika taasoo isbedeladaasi ay iyaguna soo gaadheen cryptocurrency-ga. qodobka labaadna waxa weeye doolarka Mareykanka oo asaguna soo laabtay sanadkanna la moodo inuu soo laabanayo oo haymanadii uu suuqa ku lahaa amba meeshu uu joogay barigii hore inuu ku soo laabto ayaa macquula maadaama wax walba aan caalamka isticmaalna saameynta weyn uu ku leeyahay doolarku hadday tahay alaabaha la kala iibsado hadday tahay stock marketka forex-ka iyo cryptocurrency-ga wax walba doolarka ayaa la dhinac dhigaa qiimaha oo doolarka u dhigma ayaa mar walba laga hadlaa oo cid walba ay eegtaa mar walba. sida wada ogtihiin dhaqaalaha caalamka boqolkiiba 35 wuxuu ka kooban yahay amba cumlada lagu tacaamulo waxa weeye doolarka. qodobka kale ugu muhiimsan aan doonayo inaan dul istaaga maanta waxa weeye Federal Bank Mareykanka amba committee-ga waxay dhahdaan hay'adda oo wiigii hore soo saartay qaraaro aad iyo aad u culus. qaraaradaas oo hay'adda Mareykanka ay sheegeen inay ka mid ahaan doonto sicirka faa'iidada oo ay kicinayaan sanadkan ugu yaraan 3 jeer ay ka bilaabayaan March, June iyo December 2022-ga. arrinta kale cajiibka ahayd ay dadku la yaabeen waxay ahayd waxa la yiraahdo balance sheet amba asset-ka ay iibsanayeen federaaliga Mareykanku ilaa 2008kii oo hantidooda lagu qiyaaso $9 trilyan taasay doonayaan xitaa inay iska iibiyaan imanka oo khubarada caalamka iqtisaadka ay u malaynayaan inay saameyn weyn ku yeelan doonto economiga caalamka guud maaha ka Mareykan oo quraat. marka taana hadday sameeyaan suuqyada waxay la tahay inay hoosta gelayaan. dhowr maalqabeen oo caalamka ugu caansan ayaa xitaa warwar ka qaba suuqa iyo siduu u socdo sida ninka la yiraahdo Michael Burry wuxuu ku caan baxay 2008kii markuu asmadii guryaha dhaqaalaha Mareykanka burburisay oo asagu sanad ka hor amba 2 sanadood ka hor uu sheegay inay crash weyn uu marketka ku imanayo amba suuqu inuu gabigiisa oo soo daadanayo. arrintaasina run bay noqotay oo 2008kii suuqu aad iyo aad buu soo daatay oo saameyn weyn buu xitaa caalamka ku yeeshay taasoo dhowr maalqabeen oo kale ay iyaguna isla fikirka Michael Burry ay qabaan ay u malaynayaan in wax la yiraahdo market bubble in la gaadhay oo sheerarka suuqyada yaala hadday tahay shirkadaha Apple, Amazon iyo Tesla oo sicirkoodu aad u sareeyo waxa la yiraahdo overbought oo aad markay dadku ay u iibsadeen taasoo calaamadaha in suuqu soo daato kamida. cryptocurrency-ga waynu aragnaa Bitcoin-ka oo soo taabtay $960,000 iyo coinanka kale altcoins-ka. ninka Michael Burry hadda New York istaagno iyo taariikhdiisa ninkaasoo filin xitaa laga sameeyay iyo sida u tawaaqacay ninkaas inuu suuqu soo daadanayo uu uga faa'iiday wax gaaraya $900 milyan oo markaa shirkadiisa hedge fund-ka uu lahaa dadkii maal gashaday lacag uu sameeyay oo asaguna gaar ahaan $100 milyan uu ka sameeyay. marka ninkaasi nin yar maaha hadalku yiraahdo wuxuu yiraahdo waynu si wacan aynu dhigaysanaa inkastoo maaragtay suuqu markuu soo daadanayo baaraxuna ka soo baxaan oo halka dadka cabsi la gelinayo si ay uga baxaan suuqa kadibna suuqu inuu laabto ayaa macquula. markuu suuquna meel sare u marayo hadii jeer baaraha wacan baa la soo saaro oo la yiraahdo coin-ka amba share hebel cirka qabanaya. filinka Michael Burry laga sameeyayna waxa la yiraahdaa The Big Short. waxayna la talin lahaa inaad daawataan ayaamahan suuqu hoos u dhac uu sameeyo si aad suuqa uga yara fogaataan. ugu dambeyntii advice-kan siin lahaa waxay advice-ku waxa weeye inaad iska sugtaan suuqa ilaa uu meel uu ka soo laaban karo uu istaago. dabcan cidna garan mayso meesha ugu hooseysa uu istaagi karo laakiin arrinta kale wacan uu qofku sameyn karo waxa weeye dollar cost average uu halka maarta lacagtiisa guud qofku intuu kala qaybiyo uu meelo kala duwan uu suuqa ka soo galo. intaas walaalayaal maanta inii hayay khayr badan baan inii rajaynayaa channelka ku xidhnaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.